في شهر أوله رحمة تبنى لله مغفرة الله بأوسطه لذنا بحماه آخره العتق من النار إن شاء الله. nin ayaa iga sheekeeyey dhakhtar lagu qalay Canada ayaa wuxuu yidhi intaan qalliin galay culus ayaa wuxuu yidhi gabadh dhakhtarada ayaa ay soo booqatay maalintii ku xigtay dabeetana waxay igu tiri bal xaalkaaga ka waran waxaan uun daldalay buu yidhi wax ilaahay uunu koobi karo ilaahay mahadi baan ku sugan nimciyo barwaaqaan ku sugan aad baan u wanaagsanay gabadhii baa dabeetana aad u yaabtay buu yidhi markaasay tiri miyaanad ahayn ninkii halkan lagu qalay shalayto maya isaga haddaa barwaaqadan iyo nimcadan iyo wanaaganaad sheeganaysaa xagguu kaaga yimi kii dhibtaan ogayay soo bartay baaba tahay markaasaan ku yidhi buu yidhi anigu dad muslimiina baanu nahayo wixii nagu dhacay dhibaatana ilaahay baan ugu sabaqnaa khayr iyo wanaag bay noo noqotaa kadaalik markaa dee wixii wanaagana nool ku mahadnaqanaa waxay tiri anna maalin walba nafta saan isaga jari lahaa baan ka fikiraa bay tiri anna maalin kasta nafta saan isaga jari lahaa baan ka fikiraa bay tiri yacni waxa weeye qofkaasi waxa laga yaabaa adduunyo dee mansabkii ugu sarreeyeyba ayaa manaasidii ugu sarreeyey waa qof dhakhtarada mushaarkii ugu fiicnaa bay qaadataa gaarigii ugu dambeeyey baa laga yara wadato waxa weeyaan gurigii ugu fiicnaa baa laga yaabaa inay haysato oo ay wadato haddana waa taa maalin walba ku fikiraysa inay nafda iska jarto yacni waa iimaan la-aanta shay markaa aanu buuxinayn oonu qado u noqonaynin waxaan la cunayaa ee markaa ruux markaa wax kale quudanaysay oo iimaan markaas iyo xuska ilaahay iyo qur'aanka iyo alla ku xidhankiisa quudanaysay ayaa xidhiirkii ka go-an yahay anteenadii baa ka maqan dabeetana waxa weeye halkaasay markaa nafdi gubanaysaay ay ololeysaay qofkiina ay dhibaysaa laakiin qofka mu'minka ahi isagoon adduunyo fara badanna haysanin ayuu waxaa yara ilaahay siiyey ayuu ku qanacsan yahay taas ayuu markaa ku degan yahay taasuu markaa ku murugo la-yahay markaa ilaahay wuxuu leeyahy nolol wanaagsan ayaanu adduunyada ku noolayn doonaa oo sacaadada iyo liibaanta oo qanaacadaas iyo wixii ilaahay siiye ku qanco ah aakhirana markaa waxaanu ku abaalin doonaa yacni kii ugu wanaagsanaaye markaa wixii ay wanaagsanaa ay samaynayeen abaalmarintiisa ayaanu siin doonaa markaa iimaanku tumaaniino iyo xasiloonibu qalbiga geliyaa raaxo ayuu geliyaa qanaaco ayuu siiyaa wax la yaaliye wixii ilaahay ku arsaaqay inuu ku qanco